So markale waan salaamay maanta waxaan arkayay TV lottery-ga ayaan arkayay commentiya aan akhrinayay meel TV lottery-ga arday aad u codsanaysa baan arkayay dad badan horta inta badan TV lottery-ga waxa weeyaan dadka aan garanaynin TV lottery-ga waxa weeyaan waa green card-igi yani horta wadamo badan oo TV lottery la way jiraan lottery wadan walba iska leeyahay lottery lacag oo khaasa somehow kan United States uu ka duwan yahay aadna uga jilicsan yahay kuwa kale fursada la isku soo aqbalaan aad ba u adag tahay laakiin ugu dambeystii mar walba waa fursad unayada anyway abla garantiisa aan ku durugno TV lottery baad ku qori kabacdi waxa ku soo baxaysa yani dhowr waxyaalo badan inta badan website-yada soo baxay way badan yihiin laakiin adiga calaad xal website-ka saxda mar walba kan electronic diversity visa lottery kaas baad ku dhufani so page-ka ma ku soo bixi doona insha Allah waxa weeyaan inta badan hadii information-ka inuu meesha furanta in kala aad rabto inaad ogaato wali uu socdo oo kale waxaad ku garanaysaa begin entry option-kaas ba maxaan dhahay ayaa maxaan dhahay meesha ku yaal option haduu shan meesha ku oolin oo kale inta badan ma furo ayay ka dhiganta marka option-kaas hadii ku siinayaan oo kale inta badan uu furan yahay so begin entry ala ayad xal waa mar walba open gareysan yahay furaysaa so begin entry baad dhihi marka code-kan oo kale ku soo bixi authentication code-kan mar walba waxa weeyaan wuxuu check garanayaa inaad qof robotic tahay iyo inuu maxaan dhahaa qofkan buuxinay uu yahay qof maxaan dhahaa human buu kala saaraya waa inta badan waxyaalaha loo isticmaalo code-kan muhiim ah waad gelin inta adiga ugu qoran meesha waxaan ka page-ka ugu muhiimsan baa ku soo baxaya marka page-ka calaamad wuxuu ku bilaabanayaa magaca aabaha iyo waxaan ka wadaa magacaaga iyo magaca aabaha for example waynu gelinaynaa magaca tusaale ahaan oo kale magaca uga magaca oo kale tusaale ahaan iyo magacii maxaan dhahay aabo oo kale marka qofkan hadda tusaale ahaan oo kale ma bahalkiiba ma male ba ma female ba qofka buuxinaya kolba bay ku xiran tahay waxa weeyaan waxaad gelinaysaa marka monthigii baad dhalatay adiga ayaad gelinaysaa bishaad dhalatay maalinta dhalatay ayaad gelini maxaan dhahaa sanadka dhalatay baad gelini the same as kabacdi waxa weeyaan waxaad gelini city where you were born maxaan dhahaa caasimadii aad ku dhalatay tusaale ahaan caasimadda aad ku dhalatay baad gelinaysaa halka haddii ay tahay yani gobolada Soomaaliya ay ka tirsan tahay haddii isla caasimadda tahay marka haddii gobolkaaga aad u malaynaysa xataa inaan garanaynin waad ka dhigi kartaa caasimadda wadanka aad adiga passport-iga ka qaatay tusaale ahaan Soomaaliya oo kale waad ka dhigi kartaa Muqdisho oo kale Ethiopia oo kale Addis Ababa oo kale Jigjiga oo kale Djibouti oo kale Djibouti waad ka dhigi kartaa yani marka ala taal caasimaddaas baad gelinaysaa halkaas ama meesha aad ku dhalatay country where you born marka tan waa caadi ahaan waa magaaladaad ku dhalatay yani baad gelinaysaa magaciisa waxa weeyaan halkan inta badan wuxuu ku leeyahay your country hadii maxaa country of eligibility for the DV program haduu wadankaaga tusaale ahaan waxaa jira wadamo aan eligible ahayn aynu sax aan u furnayn inay buuxiyaan DV lottery-ga ama fursadda DV-ga aan ka faa'iideysan karin wadamada listigaad ka eegi kartaa tusaale ahaan waxaad ka eegi kartaa explanation country of eligibility baad ku dhufan kartaa oo ayadana ku tusi karta maxaan dhahay ku sharxaad yar ka siin karta ama ma yahay internet-ka aad caadi ugu qori kartaa maxaan dhahay eligible countries-ka buuxin kara DV lottery-ga green card-ga United States-ka fursadaas kabacdi passport-kaaga baad inta ugu muhiimsan information passport-kaaga la geli magaca passport-kaaga kugu qoran ugu ka ii sheegay aabo iyo magacaaga aabo kaagi marka mar walba inay labada information isku mid noqdaan yani because mar walba horta wax loo qiimeeyo lama garan karo information-kaaga mar walba iyagu sax yihiin darajada lagu siinaa marka waxa weeyaan mar walba waa 30-40% acceptance 20% acceptance xataa way ka yaraan kartaa marka probability weeyaan ardayda badan la isku soo aqbalo marka aad bay u yartahay so passport number-kaaga baad gelin halkan sidoo kale waqtiga uu dhacayo kale passport-kaagu bisha maalinta iyo sanadka aad gelin passport-kaaga marka meesha laga siiyay baad gelin halka country-ga laga siiyay passport-kaaga tusaale ahaan oo kale wadanka aad ka qaad Soomaaliya hada passport-kaaga Soomaaliya kale passport exception-ka يعني وحويان تن وB يعني مر والببهالكي ويان هدي باسبورتيغا uu yahay maxaan dhahay hadaa tahay qof passport aan haysanin oo kale ama passport siyaabo awgeed aan haysanin oo kale maxadas I'm not required to submit passport information because I am stateless يعني ani maxaan dhahay passport inaan geliyo looma baahna because waxaan ahay yani qof aan wadan haysanin
qof nationality aan haysanin sida wadamada burbursan oo kale yani tusaale ahaan oo kale qof passportkiisa aan qaadan karin oo kale in order control countries yani oo adduunka macnaha tusaale isagoo wadankiisa la control ama isaga control gaara tusaale ama wadan kale control ku jooga anyway yani almuhim passportkiga awood aan u lahayn inuu qaadan karo kale option kan buu doorani kabacdi markaas iyada kaas baa cancelmaya oo optionkii passport inaad haysatay baa cancelmaya marka kabacdi waxaad u dooranaysaa sababta marka aad passport u qaadan weyday marka optionka inta badan dadka Soomaali ma umaleynaya inuu option xasir qaadan marka Soomaali passportiga haystaa asaga ayaad gelinaysaa so photographica ugu muhiimsan somehow photographica photo exampleska yani oo kale maxaan dhahay waad fiirin kartaa photo exampleska ku siinayo qaar maxaan dhahay uu ku leeyahay oo kala jira oo ku diidayo yani wiiga samee photographica oo kale maxaan dhahay intaas ha noqdo bx intaas maxaan dhahay sidekiisa bx aan ha noqdo marka wax weeyaan mar walba adiga waxaad ogaanaysaa photographica ayaad maxaan dhahay aad gelinayso oo kale hadduu lacag ku diido oo kale waad edit gareyn kartaa sideka waad edit gareyn kartaa explanation khaas ah uga sii baahan tahay photographica aad rabtid yani inta uu noqonayo maxaan dhahay qaabkaad u galayso maxaan dhahay tusaalahan backgroundgaaga uusan color noocaas oo kale noqonin stampiga haduu toole yani backgroundgaaga inuusan color noocaas noqonin oo hoos iyo waxaas kan backgroundgaaga noocaas oo kale noqonin marka as long aad wax walba hagaajin karto inaad hagaajiso isku xataa shay cad inaad xiratid way ku caawinaysaa maxaan dhahay marka picture-da la diiday iyo kuwa aan la diidayn oo kale explanation khaasa ayuu ka siinayaa wax weeyaan site-kan hadaa rabtidna wax weeyaan adiga horta mar walba xasuusno yani sawirkaad gelinayso background inuu cadaado dharkan inuu maxaan dhahay uu sameeyo baalkii dharka inuu yahay dhar aan madoobeyn oo kale stampiga ay tahay dhar ay qabanayaan oo kale waxaas ka fiican marka sharax adina dhar caadana waxa iska gashay aad bay u fiican tahay mar walba because acceptance aad buu yaryaad wax walba oo maxaan reject ka hortagi karto dhinaad ka hortagto inaad isku daydo sawirkaad gelinaysa haduu lacag lagu diido oo kale soo ku weyn yahay oo kale waxaad ku yareyn kartaa tusaalahan adoo isticmaalay binka adoo isticmaalay buuyi kala duwan baad ku yareyn kartaa sawirka deena waxa weeye marka sawirkaaga waad soo upload gareyn kartaa halkan waxa weeyaan addresska optionalka ka qoran tahay yani wixii waa optional ugu dhawaad iska raafi kartaa address line kaas oo kale yani dadka bar number bay geliyaan because xataa valid address ma haystaan meelaha barkood marka magaaladii caasimadii iyo zip code-ka postal code-ka wadankiina ayaad gelinaysaa zip code-ka postal code-ka wadankiina country-ga marka aad maxaan dhahay aad joogto country aad maxaan dhahay markaas addresskaas iyo waxaas uu yahay baad gelinaysaa marka waxa weeyaan country aad maanta ku nooshahay haduu yahay meel aadan meesha passport-ka qaatay meel aan dad ku nooshahay oo kale country where you live today halkan baad ku qoraysaa marka tan sababta country loo raaciyo waxa weeyaan waxaad sabab noqon kartaa inaad wadankaaga ku nooleen oo wadan kale ku nooshahay marka markaad zip code-ki wadankan aad ku nooshahay aad gelisay wixii oo dhan halkan waxaad ku qoraysaa waxaad gelinaysaa wadanka waqti xaadirkan aad ku nooshahay ee address-kan leh iyo zip code-kan waxaan because waa wixii hadii lacag lagu soo aqbalo documentiyadaada iyo safaarada meesha lagaaga yeeri lahaa weeyaan country where you live today at the same time option kale oo gaar ay leedahay oo gaar lagu weydiinayo and here it is marka waxa weeyaan halkan baad gelinaysaa the same halkan numberkaaga waa option laakiin inaad gelisana waad kartaa emailkaaga mar walba waa muhiim inaad geliso because waxa weeyaan emailkan waa additional information-ka wixii lagu soo sheegi lahaa lacala hadii xataa lagu soo aqbalo oo kale meeshaad inta badan ka wada xiriir lahaydeen email ku noqon doona kan waxa weeyaan highest level education you have achieved as today hadii highest baa lagu yiri ma ahan inaad intaada mid kamid ah haysato ma ahan highest midka ugu sareeya aad mar walba inaad haysato marka primary school only tahay oo kale kaas uma select garayni high school degree vocational school degree university degree master doctorate degree anyway muhiimada waxa weeyaan you must have a minimum of high school diploma at least yani inaad maxaan dhahay inaad high school diploma haysatid oo kale unbaa ugu muhiimsan yani at least yani marka wax weeyaan mar walba meesha adii education-kaaga meesha ugu sareysan baad doorani halkan waa statuskaaga maxaan dhahay aad ku waqti xaadirkan waxa aad tahay yani qof guursaday ama qof wax furay ama qof single unmarried oo kale meeshii single-ka ay u taagan tahay marka wax weeyaan interspouse information hadii weeyaan lacala waxaan wax ka baxsan oo kale aad adiga xaalad noocaas oo kale aad u jirto number of children-ka yani hadii aad markaas iyada tahay oo kale qof aan caruur lahayn zero simply kabacdi uu continue aad dhihi page kale horta ka dambeeya ma laha page ku xiga kan waxa weeyaan information kan aad gelisay
inuu sax yahay in kale maxaan dhahay page-kii ku tusi lahaa wuxuu ku leeyahay information-kan aad gelisay inaad wax ka edit garaysa miyaad rabi lahayd marka haddii jawaabtaadu tahay maxaan dhahay maya yani submit umaad dhahaysaa haddii jawaabtaadu haa tahayna wixii aad edit garanaysay page-kan buu dib kugu soo celinaya kabacdina waxaad edit garanayso halkan baad ka edit garan at least ugu yaraan yani waad المهم waad dhamaysay yani optional buuxintii waad dhamaysay maxaan dhahaa markaa sameedo ma dhahaysaa yani wax kale oo hadda buuxintiis ku laaban ma jirto marka I wish you all the best and like yani mar walbana aqbalaad iyadoo yartood ogtahay hadana waa fursad ugu dambaysta inaad ka faa'iidaysato mudan xaqiiqdii dad hele way jiraan maxaan dhahaa haddii dad hele garanayso waad nala sheer garan kartaa adigu haddii aad way aan garanayn aad garanayso kasoo kale waad nala sheer garan kartaa information aynu haynin information inta ugu muhiimsan waa ka